waxaan ku bilaabayaa fikradana soo bandhigayo in dhawaan la xusayay ayaamii dhaweyd imika oo ahayd 30kii bisha March lagu xusayay dalka Falastiin maalintii dhulka oo taasoo sidaan la socono ay tahay mid Falastiin sidaan la socono in ay tahay dhul dadkeedu halgamayaan xorriyadooda oo lagu haysto dhulkoodii oo deewad garanaysaan oo ay yahuud bada ka qaadatay dhulkoodii ta oo anagoo arkayna in ay Falastiintu dalkoodii iyo dadkoodiiba u dadaalayaan oo halgamayaan oo aanay jacaylkeeda marnaba aanay ka seexan iyo dadaalkay u wadaan dadkoodii dalkooda ayadoo arrintu sidaa tahay ayaa waxay noo sheegaysaa in annagana ay nagu habboon tahay ama aan annagu mudanahay in dadaalkeena annagoo ilaahayna sii dhul weyn oo barwaaqo badan leh oo khayr badan leh oo wax soo saar badan laga heli karo inaan annagu mudanahay inaan dhulkeena sii jeclaano oo ilaahay ugu mahadnaqno oo aanu ku dadaalno khayrkeeda iyo khayrka dadka degan ee ehelkeena ah culimada dhaqaaluhu waxay cadeeyeen inuu dhulku yahay hantida adduunka ugu muhiimsan waxaana hoosta ka xariiqeen inay tahay hantida ay hanti walba ka dhalan karto nolosha fiican iyo soo saarkeeda iyo hantida ka soo bixi iyo bilicdeeda waxay ku xiran tahay dadkii ku dul noolaa dadkii lahaa kartidooda aqoontooda iyo wixii ay hanti hayaan ay hanteen ay geliyeen oo ay ku shaqeeyeen ayay ku xiran tahay noloshoodu iyo horumarkooda ahamiyadda dhulka iyo qiimaha ay leedahay waxa ogaan kara qof ama cid ku noola dal shisheeye oo dulsaar ku ahaan jiray uu ogaan karaa markuu ka qaloonayo ama uu dareemayo inaan waxba ku lahayn meesha uu xusuusanaya uu ogaanaya qiimaha dhulkii uu lahaa uu ka soo jeeday waxaana la wadaaga fikradda ee aanu hadalku koobi karin ummadda Falastiinta ee aan tusaale ka dhigay iyo dadaalkooda iyo xusidooda dhulkoodii laga qaatay ee lagu haysto ilaahay wuxuu noogu deeqay dhul ballaaran oo khayraad badan leh khayraad guud iyo khayraad gudaheedaba ah annagu baan nagu xiran tahay inaanu kala soo baxno ilaahayna waxaan ugu mahadnaqaynaa ama waqti walba waajib nagu ah inaan ugu mahadnaqno inaan cid nagu haysan inaan ku madax bannaanahay inaan nabad ku joogno marka waxay noqonaysaa arintu iyo waajibkeenu ah inaanu dadaalo oo wixii khayr ah ee ku jiray khayraad hantida macdan beero biyo wax kasta ku jira inaan anagu kala soo baxno oo ka faa'iidno taala aanteedna fikradda la aanteed dadaalka la aantii aqoonta la aanteed way nagu adkaanaysaa inaan horumar gaarno taasi waxay ka tahay xaggayga message ama risaalad ama talo ku socota dhalinyarada Somaliland وانشد بسيرك هرجيسا ورونقها تهديك بهجة روض ناعم بسم والبحر بربرة في موج شاطئها يغنيك عن جمل الألحان والكلم برع مدينة عشق كم روت قصصا أبطالها خلدوا شعرا وبالنغم بكي وبورمة قد صار حسنهما لوحات فتنة ألباب فلا تلمي واذهب إلى عدل ذي زيلع نشأت تتلو عليك فصول المجد والقدم لا تسع عن بلد الفرسان قلعتنا هذه تليح ديار الشم والشمم ادخل ببشرك الأسعى نود والقبها
أهلا يخط فؤادي عشقهم بدمي، أو عد إلى نجد والسهب مربعة، تلقاك تبسم عرقاب فلا تجمي. يا